shirka wada tashiga ka faa'iideystayaasha mashruuca taakuleynta isgaarsiinta ee maanta ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed waxaa si toos ah u furay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dowladda Soomaaliya iyo wasiiro kale oo ka socday maamul goboleedyada dalka shirkan oo muddo 3 maalin ka socon doona magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed isla markaasina ay martigelisay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa waxa ugu horeen ka hadlay qaar ka mid ah wasiiradii ka socday maamul goboleedyada dalka waxaana ay ka rajeen shirkan in laga soo saari doono qodobo muhiim u ah wasaaradaha boostada isgaarsiinta qodobadaasi oo ay ka wada shaqeyn doonaan mashruucan mashruuc faa'iidadiisu aad u ballaaran tahay hadaan reer Hirshabeelle hore uga soo faa'iideysanay iyo dowlad goboleedyadii hore u jiray waxaan rajeynaynaa mashruucan noqon doono mashruuc aad u ballaaran oo la mahadin doono annagana ka qayb ahaan waxaan rajeynaynaa inaan noqon doono dad marqaati ka noqdo kulankan inuu noqdo kulan aflaxa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودر مدحوينه waxaanu kaaga mahad celinayna sida gobonimada lahayd ee sharafta lahayd ee xurmada lahayd ee aad noogu martigelisay caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Baydhabo ee aad noogu soo dhaweysay hooygaaga oo aad nagu casuuntay iyo dhammaan xukuumaddaada oo si aan kala go' lahayn dhammaantood uga hawlgalay inay hawsha tani aynu maanta isugu nimid gasho aad iyo aad baan madaxweyne kaaga mahad celinayna adiga iyo xukuumaddaadaba iyo dhammaan dadweynaha Baydhabo wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Cadde iyo wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dowladda Soomaaliya Cabdi Canshuur Cali oo goobta ka hadlay ayaa si weyn u sharaxay qodobada la kor istaagi doono isla markaana sida aadka looga doodi doono muddada 3 maalin ee shirka uu socon doono madaxweynaha Koonfur Galbeed oo mar walba diyaar leh in muxuu ahaa maamul dowlad goboleedyada iyo xukuumadda isoo keeno oo noqdo biridkii ama buudadii lagu gudbi lahaa wax walba oo jiro sidaa daraadeed waxaan ugu soo dhaweynaa wasiir ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya mudanayaal iyo marweyn soo dhawaada mar labaad soo dhawaada mar saddexaad soo dhawaada waxaan ka cudur daaranaynaa xoog dib u dhac iyo nagalay farsamo ma awood maalmo ciid iyo shaqaalii xoogaa fasax ayaan lagu jiray saasaan ka cudur daaranaynaa waxaan rajaynaynaa kulankan oo lagu kulmay oo ah muxuu ahaa taakuleynta isgaarsiinta in wax fiican ka soo baxaan in loo gudbo wajigii saddexaad ee mashruuca haddii weli aan loo gudbi karin loo sameeyo bridging wax la yiraahdo ama maartay mutakororsi gaaban si aysan gaab u soo bixin ama firaaqa labadii qaybood aysan u kala goyn waxa wasaaradda isku hawshaas inay qabato intaan la gaarin maanta shirkaas waxaynu la fariisanay World Bank iyo dhammaan intay qusaysay waxaana rabaa madasha inaan ku wargeliyo iyo saaxiibadeen gobolada ee maamul goboleedka ka yimid in nagala aqbalay lana kordhi ilaa iyo sanadka soo socdo mashruuci uusan ku ekeen bisha 30keeda madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa si weyn ugu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo dhammaan wasiirada ka socda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana uu ka rajeeyay shirkan in laga soo saari doono qodobo muhiim u ah isgaarsiinta dalka shirweynaha qaran ee isgaarsiinta mashruuca taakuleynta isgaarsiinta iyo boostada iyo tiknoolajiyada waa soo dhaweynaynaa wixii ka soo baxay iyo miradhalkiisana waa ku faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad u mahadsantihiin shaqadii baan hore u gudagalaynaa shirkiina waa noo furan yahay Siraaji warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo.